ilma adeerayaalow waxa laascaano iyo sool laga soo mareego oo dadka qaar lagu gaado qiira jabaanta calanka buluugga ah baa rabaa maanta ummadda Soomaali inaa wax yar dhagooda ku dhiciyo eega yaabi doone bal intan la dhageyso qoraysaan warka markaad halkan ku jira in adeerayaalow markaad qoraysaan warka markaad qoraysaan in adeerayaal waxaad ku qortaan nin iidoora oo si dhuumaalaysi ku soo galay magaalada baa nin dhulbaanta ku dilay that's it sida wada qora kulli meedii oo dhasaa ku qora si dhuumaalaysi ku soo galay nin dhulbaanta u dilay marka waa in saa lagu qoraa meediyaha iyo warbixinada idinkuna waa inaa saa dhahdaa nin isaaqo si dhuumaalaysi ku soo galay ciidamada Soomaaliland baa hotel xamdiga wiili doora oo askarta Soomaaliland ku jira waa sida hadalku dhigaysa codkan waa cod sira WhatsApp-ka laga qeybiyo weey cod sira WhatsApp-ka laga malaha wiil Fariido dhulbaanta oo wiil Saacid Muuse tahay baa keenay waxay la leeyahay wiili doora oo askarta Soomaaliland ku jira baa dhulbaanta dhameeyay baraha bulshada ku faafiya kuwa calanka buluugga ay qiira jabaanta lagu gaado ha arkaano hasi laba kacleeyaane ku faafiya maye waraabe isaaqa oo waliba habar jeclaa baa maqaaxid ku taala laascaano dhulbaanta leeyahay baasta ka haday ku faafiya baraha bulshada ku faafiya waayahay ururka argagixisada al-shabaab ee qawaariijtana maanta markoodii ugu horeysay baraha bulshada waxay ku faafiyeen barahooda bulshada in deegaanka duri ee gobolka Sanaag ay gacanta ku dhigeen warkii Muuse Biixi waxba iga soo naasacadaada hadda aniga iyo dad badan marka aad amniga faraha ka bixiso oo mata xasilooni darada ay qaangaarto oo ay kibirto argagixisada kobacay u tahay weynaan bay u tahay isbalaarsi dhuleeda u tahay marka ha laga haabiyaan leeyahay ninkii daaci muqtaar ahaana waxa uu leeyahay aniga afkeyga ma kare muxuu leeyahay mar aad mujaahidiin soo wada qortaan taalaadii dhistaan ninaan mujaahid Muuse Biixi han isku qarxin maayo waa isqarxinaya Muuse Biixi baan isku qarxinaya horta kelmaddaas waa kelmad argagixiso dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliyaba deegaanadooda kama dheeree in ay qabtaan oo ay la xisaabtamaan oo waxa uu mudan yahay laga cadaalad falo oo loo cadaalad sameeyo jeclala wiilkaya wax badan buu noo wadaadeeyay oo noo tabliiqeeyay fiqitolki kama jannato qaybta koowaad ee barnaamijka dhamaanba waa sool iyo wixii qusay laakiin jawaabta Soomaaliland codadkan WhatsApp-ka laga soo xaday iyo waa isqarxinaya iyo jawaabteeda Soomaaliland uma fadhisee anaa jawaab Soomaaliland jawaabtooda anaa wada maanta reer Soomaaliland anaa jawaabtiina wada qaybta koowaad baan halka uga gudbayaa qaybta labaadna baydhabo waxa ka socda koonfur galbeed oo heshiisa Soomaaliyana heshiis la halku dhigaas ayaa amba qaaday oo hirgalay kadib markii heshiis taariikhi xalay mucaaradka iyo lafta gareen madaxweyne Xasan Sheekh uu dhaxdhigay heshiis waara 2024 kana 10 bilood muddo kororsiya la siiyay in doorashadu dhici doonto laba siyaabood baana loo sameeyay oo madaxweynaha cuskaday qaybta labaad ee barnaamijka ayaynu ku qaada dhigeynaa kiiskii koonfur galbeed waa soo dhameeyay aanu soo laabto waa dhageysateen cod gabar yar oo dhulbaanta oo Fariid ah kulay waa Fariid qof reerkiisa jecel waa Fariid moot ay leedahay wiilal baa inta lagu dilay inta baa wax lagu leeyay iyo door baa dilay baraha bulshada ha lagu faafiyo wariyaashi siyaasiyiintii dhaqankii intaba meesha ku jiraan wixii hore u dhici jireen sidaan ay waa bumbooninta aad looga badiyay walow ay wax dhici jireen oo saxta hal door ay dhinteen haddana qaybta bumboonisku meesha kama marneen qaybta bumbooniska meesha kama marneen waxa rabaa marka khilaafkan waa soo xoogeystay ama bumboonis hala gala ama wax because bumbooniska waxa laga rabaa kuwa calanka buluug iska aabiskado si qiira jabaan ah oo ma taqaana leeska marba meel loo jiheyn karaa la raba kaliya in Soomaalida lagu diro Soomaaliland laakiin annaga Soomaaliland khilaaf dhaxdeeda ah inaan bumboonino oon faragashano waa laga qurux badan yahay oo waxa laga dhaxlayaa khilaafka Soomaaliland oo 30 sano nabad ahayd haddii aan sii bumboonino is shabaabka iyo daacishna ee sida koonfurta ula hareen in internet ula haraan oo maxaa sabab u ah maanta baraha bulshada shabaabku waxay ku shaaciyeen in deegaanka duri ee gobolka Sanaag iyagoo ay gacanta ku dhigeen maanta si buuxda hadalkii Muuse Biixi maxaa kaaga baxay hadalka Muuse Biixi waxa la hadlayaa kuwa qiira jabaanta calanka buluugga ah lagu soo dhaweysto oo lagu kiciyo oo ku qeeliyo oo gadaalna ka yira hadda wax faana waana la siray anu leema siray shabaab maanta Sanaaga qabsanay xilli Xasan Sheekh Maxamuud uu dhulka koonfurta ka soo babinooyo maanta irir Soomaali ka soo qaad irir Soomaali waxa wiil shabaabka wax la yira baa iicad aniga wallahi kalmadiis meel ku qorta irir ka xawil irir ka qaar baa hurdee waa soo kaceeda ka soo xawil irir kale u gudbi
sidaa wax u eg baa ii muuqda ninkii daaci mukhtaar aana waa daawateen waa isqarxinaya anigu awalaa qaabkiisa la yaa wadaad kaneeca la wadaad kaneeco waa wadaad toog wax badan waa noo wadaadeeyey waa noo qolaacuudiyey waa noo quraameeyey waa noo xadiisiyey yaa waa noo tabliiqiyey anigu waa fahamsanaa weligey markuu yidhi anigu wiil dhulbaantaa ahay qorigayga waa qaatay dhib male dhulbaantanimada waaba sharaf iyo ajir laakiin markaa tuutahan cimaamad ku kor xirata tira mujaahid waa isqarxinaya waa astaamaha iyo dhaqanka shabaab waxaan leeyahay maxkamadda ciidanka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda somaliland labadaba inay labadoodaba midkii u dhow labada deegaan mid buu joogaay in wiilkaa sheekh aadan sunna waa jecluu yiri ogaaw sheekh aadan sunna wadaadka keliya wadaadkii oo taqaanaa somaliland ka cararaya shabaabka u galaayo wey ninka keliya aan ku daydo oo aan sunnadiisa wataba waa ninkaasuu leeyahay waa isqarxinana waa leeyahay ya dhaqankii shabaab iyo marba hadduu aadan sunna taageersaya waaba iska shabaab waaba caddaaba marka waxaan leeyahay dowladda somaliland iyo dowladda soomaaliya labadaba way ka go-an tahay iskaashi la dagaalanka argagixisada wiilkaa yarna halistiisu wataa ogaada waayahay wixii la bumbuuniyo waxaan leeyahay somaliland jawaabteeda waa tan horta somaliland whatsapp gabar cod looga duuba iyo wax lagu faafiyey qiiro jabaan iyo wadaa wiil yaroo isqarxinayo iyo marka laga soo tago somaliland nabaday ogasha deegaanadeeda iyo xuduudaheeda dadka degan inay nabad ku noolaadaan bay ogashaa qabiilkee doonan ha noqdaan ma kibirtay ma qooqday balaayo ma iska dhigtay te somaliland ciidankeedii quwadeeda waa tahay sheertu waa cibaado markaan sheertu waa cibaado wallahi waa cibaado waa kuwa somaliland boobayaasha hubka ee la jidaayay iyo taangiyada wallahi Ukraine hadday arki lahayd Ukraine baa hanoola soo dirin ilaa hanoola soo diro iska dhaaf Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya iska badaayay raggan waxay ku hubiyeen yihiin taangiyadii Abramis iyo Challenger 2 iyo waxbaan arkaa marka qabiil iyo jufo quwadaas waxba kama tari karaan marka runta ka hadalno weey wala hawiya wax ka tari karaan ka dhashay aniga iska dhaaf dhulbaantii hartii daarood rag 30 sano ciidan dhisanay maanta in qiiro jabaan iyo hooyooyin iyo gabdho lagu kiciyo waxba laga faa'iidin maayo qasaare mooye ee Somaliland rirmada ku dhimo ama samaroon noqo ama habar jeclo isaaq noqo ama dhulbaantii faqashin noqo ama reerka doonto noqe Somaliland oo 30 sano school kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada amniga dhan kasta fuul ka ee adiga hadaa xataa baxdo wallahi hada qasaare qabo intaasaan rabaa qaybta koowaad ee barnaamijka inaan uga gudbo intaasaan uga gudbaa propaganda dambe iyo qiiro jabaan dambe iyo calan dambe iyo waxa aniga kullee hawiye hadaan waa iska dhaafna waaba iska de raxan weynna waxaan u sheegayaa inay iska raacaan feelkaasoo hawiyaha iska raacaan iyo inta qiiro jabaanka calanka lagu siro Somaliland haddii la hadlaayo Soomaaliya koonfur iyo waqooyi wax la yiraahdo ayaa qowda hadli karnaa ama aan ku go'i karnaa ama aan iskula joogi karnaa laakiin jufa hebel soo gooy iyo qashqashaad inaan ku sameeyno Somaliland oo dal daris ah annaga waxaan soo dhaweynayna ma baydhabana maxaa ka soconaya koonfur galbeed heshiisna la ah Soomaaliya halku dhigaas uu dhaqan galay kadib markii heshiis buu xalay ay gaareen mucaaradka lafta gareen iyo madaxweynaha qudhiis hadda agaasimayaasha xafiiska iyo shaqaalihii dowladda koonfur galbeed oo dhan koonfur galbeed heshiisa Soomaaliya heshiis la soo wada qoraa markii ugu horreysay waa maanta waa markii ugu horreysay waa heshiiskan marka madaxweynaha shalay buu u laabtay ilaa xalay labada ilaa kowda ilaa saddexda looma kala kicin fadhiga markii dambe waxa la isku raacay waliba heshiisku wuxuu muuqday kuwa labada dhinacba inay raali ka yihiin ila hoose marka waxay ii sheegeen madaxweynuhu inuu codsaday inaanan doorasho iyo dagaal shabaab uusan isku wadi karin doorashada dib looga dhigo intaas waxa ku nacfinaya oo faa'iido ku qaba lafta gareen oo isagana dib u dhigashada waaba rabiyaaba laakiin xasan sheekh waxa uu leeyahay inaan dagaalkii hadda phase 2 koonfur galbeed ka bilaabo in doorasho iyo xasarad kale ah hadda galno anigu dagaalka shabaab baa number 1 ii ah inaan ciribtiro doorasho dib haleega dhigo hadalkaas lafta gareen waa laqay mucaaradkana waxay ku margadaan oo dhuunta uu dhibana way iska laqeen ayaguna aadan madoobna waa ku dhuftay xasanna waa ku dhuftay koonfur galbeed kiiskeeda close madaxweyne lafta gareen waxaan leeyahay wax badan baraha bulshada waa ka karkarinay haddii mar birmada xasan sheekh maxamuud uu kugu dhuftay madaxweyne sharaf leh oo karaamo leh oo laandheero ah oo bartiisa joogay 10 bilood muddo kororsin aan soo dhaweynayno baa tahay mucaaradkana waxaan leeyahay koonfur galbeed dad sharaf loo milgale oo qiimo la weeye
dagaal iyo qababax iyo hebel baa dhintay iyo wiilal baa dhintay waqt doorashadu ninkan ku yimid ha nooga ekaato dhanka kale qubrada dhanka siyaasadda ee meel dhaxaadka ah dadku siyaasiyiintu midna waa meel dhaxaad midna waa waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh ma haysto hadda qofka saxda ah ee uu ku bedelana lafta gareen marka taasaa waxay u baahan tahay ka fiirsi badan micnan uma samaynayso doorasho la soo dhoweeyo qofkii u bedel lahaa uusan haysan wax micnaha hadda xasan sheekh dhankiis ee u samaynayso male kuwa madaxweynaha taageersanna waxay leeyihiin madaxweynihii heshiiskii xalay faa'iido siyaasadeed angalka siyaasadda marka loo eego kuma qabo laakiin wuxuu faa'iido ku qabaa dhaqankii odaynimadii isku soo dhoweyntii tanaasulkii oo muddooyin maqnaa dhankaas buu odaynimo iyo mas-uulnimo iyo mataqaanaa waxeeris iyo dhankaas buu faa'iido ka hela maahane xasan mataqaanaa suuqa siyaasadda koonfur galbeed hadda wax faa'iidaa uu ka hela ma jirto laakiin nabadoonnimada dhaqanka odaytinimada dhinacaas buu faa'iido ka qaado ha looga haro iyo hala dilo iyo bedelkii isagoo haram cadgeey gorgor geey inta ka bixi ciidanka la geey dila hala qabto odaynimuu ka qaatay odaynimo siyaasadeedna muddan moogeen intaasaan rabaa barnaamijkayga habeennimo inaan kusoo gabagabeeyo tan inta barnaamij noocan kulmi doonna waa booska ku leh videogan waa cibaade share garee channelka youtube-na subscribe saar muuqaalka haddaad ka heshana like ku qabo war bye bye waa odayga waa military ah laakiin aan cimaamad sidan bye bye